siday wada qarayaan dhammaan dadka mas'uuliyiinta leh oo maarta halkan joogo waa barnaamij muhiimadiisa leh in dadka la diiwaangeliyo siiba dadka waxay isku qaldayaan national statistics caadiga ah ee tirakoobka dadka ah iyo diiwaangelintan madaniga oo maartay dadka dhimashadooda iyo guurkooda iyo dhalashadooda iyo lagu diiwaangelinayo waa arrin muhiim ah inta badanna barnaamijkan dhalashada caruurta iyo waxa weeyaan dad badan baa macnaha qarashaad fara badan baa ku baxo sanad kasta oo lagu sameeyo saafeeye iyo lagu sameeyo si loo ogaado inta caruur Soomaali dhalatay iyo mashaariic baa ku socoto waxaasoo dhan waxay noqonayaan wax Soomaalida u baaqday oo hawlo kale lagu qabsaday haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha hawshan ay si wanaagsan maartay ay u qabato annaga hadda ka tusaale ahaan ka dawlad Jubbaland ahaan 4 degmo ayaan barnaamijkan ka bilaabaynaa u tababarnay shaqaale annagoo maartay la kaashanayno wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxaana diyaar u nahay in hawlahaas la dardargeliyo qalabeynta xafiisyadooda iyo bay hadda bilaabanayso waxaa kaleeto oo iyadana muhiim ah in capacity-ga intaas kaliya uu ku ekaano la sii kordhiyo dadka hawshan qabanayo dadka badankooda ma wada fahmi karaan process-kii hadda la mariyay ee maartay layout-kii iyo qaabka hadda wax loo sharaxay ma wada fahmi karaan in la sii maartay la sii kordhiyo tababarka shaqaalaha hawlahaas qabanayo ayadana waan soo jeedinayaa waan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka wasiir Axmed Macalin Fiqi waan u mahadcelinayaa sidoo kaleeto waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Aydruus oo isagana hawshan si joogto ah nooga shaqeeya mar kasto naguna soo wargeliyo waxaan filayaa in wado wanaagsan oo aan hor u qaadno ay noqoto aan ku guuleysan insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.